السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كسو دوادا muuqaal cusub maanta muuqaalkeenu wuxuu ku saabsan yahay xaalad la yiraahdo autism shalatoole oo taariikhda ahayd 2 Abriil waxay ahayd maalin loo astaameeyay maalinta autism xaaladan ayaa ah hab qalafsan oo ku imaado dabeecadaha qofka uu la leeyahay bulshada qaybaheeda kale sidoo kale kobcinta hadalka iyo dabeecado soo la laabto oo aad u adag sidoo kale calaamado badan oo isku tagay ayaa loo yaqaanaa xaaladda autism dadka qaba xaaladda autism habka maskaxdooda ay u falanqeyso macluumaadka ayaa ka duwan dadka intooda kale arinta xiisaha leh ayaa ah dadka xaaladan qabo qaar ka mid ah ayaa awoodda aragooda aad ugu badan tahay dadka caadiga ah taasoo marka qaar noqoto laba jabaar awoodda dadka caadiga ay qabaan sidoo kale arinta meesha aan ka marnayn ayaa ah in dadka qaba xaaladan autism in indhahooda meel aysan ku hayn karin oo marba ay meel ay fiirinayaan taas oo dhibaato keeni karto sidoo kale dadka qaar ee xaaladan qaba autism ayaa indhahooda dhibaatooyinka lagu arka ka mid ah in garaado ay leeyihiin sidoo kale nooca astigmatism ah oo daciifida aragga la xiriira ah in ay leeyihiin sidoo kale xaaladaha lagu arko dadka qaar ayaa ah indho qalooc ama weershaha nooca loo yaqaano in aad ay ugu badan tahay dhakhtarka indhaha khaasatan optometristiga ayaa wuxuu ku caawin karo dadka xaaladan qaba autism ah in uu kor u qaado habnololeedkooda asigoo markaa u saxayo dhaqdhaqaaqa indhahooda sidoo kale asigoo caawinaad ka helayo dhakhtarka speech therapy oo hadalka barayo sidoo kale dhakhtarka neerfaha ee maskaxda iyo psychologist ayagoo si team ahaan u shaqeynayo ayay caawinaad buuxa siin karaan qaba xaaladan ee loo yaqaano autism waxyaabaha aan ka caawin karno dadka qaba xaaladan autism ayaa ah inaan marka koowaad aqbalno sidoo kalena aan jeclaano xarunteena Axyaa Eye Care Clinic indhaha lagu daaweeyo ayaa aad u siin karto kaalmaati oo ah dadka qaba xaaladan sidoo kale ay ka mid tahay vision therapy ama jimicsiga indhaha oo haddii aragooda sida la rabo uun u shaqeynayn dadka qaba xaaladan oo la sheego ayaa ka mid ah dad aad caan u ah oo ugu weyn yahay caalimka weyn ee la yiraahdo Einstein sidoo kale waa jiraan dad lagu xanto oo ay ka mid yihiin laacibka la yiraahdo Messi inkastoo asiga ahaan uu beeniyay marka maxaa ka saacidi karo inaad fahamtid xilli hore haddii aad waalid tahay canugaaga inuu qabo xaalad la yiraahdo autism si aad xilli hore caawinaad u siisid xaaladan ayaa xilli hore la fahmi karaa sida markuu canuga jiro kala 2 bilood waxyaabaha loo baahan yahay waxay tahay dhaqdhaqaaqa indhihiisa inay saxan tahay kale oo meeshii loogu yeero ama meeshii attention ka jira inuu fiirin karo oo haddii aad aragtid dhaqdhaqaaqa indhihiisa kale canugaaga in uu marba meel iska fiirinayo ama meeshii la rabo inuu fiirnaynin waxay noqon kartaa inuu xaaladan qabo inkastoo aynan daruuri ahayn in haddii xaaladan uu ku aragtay 100% uu qabo oo markaa dhakhtarka quseeyo xaaladan uu ku sheegi karo sidoo kale 2 sano markuu jiro kale hal kalamo mise 2 kalamo waa in uu ku hadli karaa oo haddii aad ka weysto kale xaaladan looga shakin karo oo loo baahan yahay inaad dhakhtar u geysid si loo hubiyo inuu xaaladan qabo iyo in kale intaas ayaan kusoo gabagabeynaa muuqaalkeen haddii aad ka heshay muuqaalkeen like-ta ka hilmaamin sidoo kale haddii aad nagu cusub tahayna subscribe saar oo nagu soo biir waxaan idin rajeeyaa caafimaad iyo indho fayow